بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta mar kale waa barnaamijkeenii aan kusoo koobi jirnay buug markaan isleeyahay bulshada anfac ayaa ugu jira, bulshada faa'iido ayaa ugu jirta. buugga maanta aan rabo inaan idinla wadaago waa buug ka sheekeynaya arrimaha aragtida philosophy-ga iyo siyaasadda iyo qofka shacabka ah waxyaalaha laga rabo in uu sameeyo haddii markaas waxaa weeye dowladdu sidii ay iyadu sidii saxda ah aysan ugu shaqeynin. buuggan waxaa magaciisa la yidhaahdaa civil disobedience. waagii la qoray oo qoraaga uu qoray magac kale ayuu lahaa, waxaa la oran jiray resistance to civil government. 1849 ayaa la qoray. waa buug aad u kooban, qoraal yar ayuu ahaa waagii hore oo essay ayuu ahaa 37 page ah. qoraaga waa qoraa reer Mareykan ah, magaciisa waxaa la yiraahdaa Henry David Thoreau. buuggani waa buug xaqiiqdii dad badan oo adduunka halgamayaalka ah ama leaderska ah ay wax badan ka faa'iideen. buugga casharo dhowr ayaa laga qaadan karaa. Henry wuxuu aaminsanaa cashar koowaad waxaa weeye Henry wuxuu aaminsanaa in dowladdu ay noqoto dowlad xukuumadeeda ama taliskeeda ay aad u yar tahay oo dadku aysan dareemi karin. almost wuxuu aaminsanaa dowladdu inay noqoto dowlad magac ah laakiin shacabka awooddu ay leeyihiin oo mar walba shacabka awoodda iyo xuquuqaha ay leeyihiin ayuu aaminsanaa. wuxuu kaloo aaminsanaa qofka shakhsiga ah in uu ka awood badan yahay kana xaq badan yahay dowladda markaas waxay rabta ha ahaato. waxyaalaha uu aaminsanaa Henry waxaa ka mid ahaa waxyaalaha ku saabsan xagga awoodaha mar walba dowladdu waa inay ka qaadato dadka shacabka ah ama dadka markaas bulshada ay u shaqeynayso oo shibilka inay mar walba ka qaadato mar walbana ugu soo noqoto ayuu aaminsanaa. haddii marka dowladdu ay xadgudubtana loo baahan yahay qaab oo silmi ah in looga hortago. qasab maaha qori iyo waxaas inaad qaadato, laakiin qaab oo macquul ah oo inaad uga laabatid gacmahaaga. qaabkaas waxaa ka mid ah inaad canshuurta oo kale aad iska dhaafto inaad siisid dowladda, in aad miitinadeeda tagi weysid, in haddii lagaaga yeero aad u tagi weysid ma garanaysaa haddii jago iyo wax lagu magacaabo aad ku ogtahay xukuumadda kuu talisa inay dulmi wado ama cadaalad darro ay wado inaad faraha ka laabato. marka fikirkan iyada ah dad badan ayaa ku saamoobay. waxaa ka mid ahaa dadkii qaatay fikirkan nin la oran jiray Mahatma Gandhi. waxaa ka mid ahaa oo reer India ahaa. waxaa ka mid ahaa Martin Luther King oo ahaa nin u soo halgami jiray xuquuqda dadka madowga ah Mareykanka. marka Henry David Thoreau fikradahan ayuu aaminsanaa. wuxuu kaloo aaminsanaa dowladdu inay mashiin tahay, tusaale ahaan inay mashiin oo kale ay tahay. mashiinkuna haddii uu wax qaldan soo saarayo ama wax qaldan uu sameynayo sida saxda ay tahay in la joojiyo ama la istaajiyo. isagu wuxuu aaminsanaa mashiinkaas waxyaalo lagu joojin karo waa energy-ga uu ku shaqeynayay. energy-ga dowladdu ay ku shaqeysana waa dadka lacagaha ay baxshaan canshuuraha iyo inay ka shaqeeyaan dadka ama ay u codeeyaan. marka dadku haddii ay ka hor istaagaan dowladdu ama mataqaana mashiinkii dowladda haddii ay marka waxyaalaha ay ka joojiyaan dowladdu inay ama mataqaana ama ay dumayso ama dowlad kale u imaanayso. marka fikirkaas waa fikir isagu aaminsanaa. waagii isagu marka uu noolaa waxyaalo dulmi ah ka socday dalka Mareykanka. waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa dowladda Mareykanka oo markaas dagaal ku waday dalka Mexico oo gobolana ka soo qaadanaysay iyo dadka madowga oo marka aad loo gumeysan jiray, la adoonsan jiray. marka waxyaalaha isagu ka soo horjeestay. marka waxyaaluhu sameeyay waxaa ka mid ahaa waa la xiray 6 sano ayuu xabsi ku jiray. wuxuu diiday in uu canshuurihii markaas laga rabay inuu baxsho. waxyaalaha uu aaminsan yahay Henry oo qoraayo waxaa ka mid ah in haddii election la galo, electionka waa sida game oo kale. gamekana qof ayaa raaya ama qof ayaana lose gareeya. marka macnaheeda maaha wixii saxsanaa ayaa la qaatay, macnaheeda maaha wixii qaldanaa ayaa laga tegay. laakiin isagu wuxuu aaminsan yahay mar walba xukuumadda iyo dadku inay ogaadaan qofka dadka maamulaya inuu noqdo qof yaqaana waxa la sameynayo si sax ah u sameyn kara
iyo qof cadaaladda yaqaana. Labadaas shardi ayuu aaminsanaa isaga, in qof cadaaladda yaqaana loo baahan yahay iyo qof sida waxa la sameynayo si saxsan u sameyn kara. waxaa kaloo aaminsanaa isagu in qofka bini aadamka ah uusan waajib aysan ku ahayn in evilka ama xumaanta adduunka yaala isaga laga rabo inuu tirtiro, laakiin adiga waajib waxaa ku ah gacmahaaga xumaan haddii la sameynayo ama shar la sameynayo inaad adigu ka laabatid. marka gacmahaaga ka laabatid, qof kale gacmihiisu ka laabto, markaas waxaa weeye xumaantii waa la joojinaya. laakiin adiga mar walba inaad ku fakarin xumaanta adduunka yaalo oo dhan ama xumaanta la wada sameynayo inaad mataqaanaa aad qasabta inaad joojiso, laakiin adiga shakhsiyan awooddaada individual levelka inay tahay inaad gacmahaaga ka laabato. yacni waxyaalaha kale uu isagu aaminsan waxaa ka mid a oo laga baran karo in sharci darrada mar walba way jirtaa, oo sharciyo badan waxaa arkaysaa si cadaalad darro ah loo sameeyey. marka dadka shacabka waxaa laga rabaa in sharciyada noocaas oo kale iyagu ay bedelaan. waa la bedeli karaa ayuu leeyahay, in la ameengareeyo oo la bedelo ayaa loo baahan yahay. haddii kale oo aan la bedelinna dad kale oo adiga kula mida ayay dhibaysaa. marka adigu haddaad u istaagin oo sidii aan soo sheegnay mashiinkii aadan siinaynin waxyaalihii uu ku shaqaynayey, markaas waxaa weeye cadaaladdu way imaanaysaa, si saxana wax waa loo sameynayaa. waxyaalaha laga faa'iidi karo qoraalkan kooban waxaa weeye in mar walba in qofku uu ogaado minority iyo majority wax la dhaho inuusan jirin, laakiin minority waxaa noqon kartaa keliya marka aad dadka majority-ga adigu aad isku dhiibto. laakiin haddii aadan dadka majority isku dhiibin oo aad laakiin hadasho, xaqaaga aad sheegato, aad waxyaalaha qaldan ka soo hor imaato, markaas minority ma tihid, majority ayaa tahay. marka fikirkaasna waa fikir xaqiiqi macquula oo dad badan ay qaateen ama ay mataqaanaa aamineen. waxyaalaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid a buuggan waxyaalaha uu noo sheegayo Henry David Thoreau. waxaa ka mid a in mataqaanaa qofka uu xaq u yeesho inuu fakari karo, qofka uu xaq u yeesho inuu mataqaanaa wax sawiran karo, imagination uu la imaan karo, qofka uu xaq u yeesho in waxyaalaha isaga hor yaalla uu falanqeyn karo ama runta uu ka sheegi karo. kadib wuxuu leeyahay dadka xukuumadda haya ama taliska haya ama dowladda way adkaanaysaa dadka inay qaldaan ama dadku ay soo dhex galaan, way adkaanaysaa. casharkaasna waa cashar kale. waxyaalahan ka faa'iidayna waxaa ka mid a qofka inuu ogaado weeye ayuu ku leeyahay qofka shacabka ah in uu wiil uu leeyahay ama yacni doonis uu leeyahay, awoodna uu leeyahay. dowladda sidoo kale awood ayay leedahay, laakiin adigu markaa isku dhiibtid dowladda ama doonistaadii aad ku raadsato, markaas waxaa weeye dowladdu way kaa awood badanaysaa. yacni qaab hadhowtiina mataqaana aadan hadli karin oo doonistaada wax weyn aan ahayn ayaa kugu dhacaya. marka waxyaalaha uu noo sheegay waxaa ka mid a mar walba qofka individualka ah ayaa ka xaq badan kana mataqaana kana weyn dowladda. waxaana loo baahan yahay qofka inuu saa u fahmo powerkiisa uu ogsoon yahay, in uu ka madax bannaan yahay dowladdan uu ogsoon yahay. marka walaalayaal buuggan kooban waxa uu ka hadlayaa qaababka qofka dadku ay ku noqon karaan citizen fiican ayuu ka hadlayaa. waxyaalaha uu ka hadlayo waa casharo aan isleeyahay maantayto waan u baahnay inaan fahanno, maadaama aan rabno dowlad ama xukuumad caadila inay dalkeena ka dhalato. marka waxaan isleeyahay casharadan iyo casharo ka badanba waa laga soo saari karaa buuggan. insha allahu tacaala mar kale ayaanu daraaseyn doonnaa. waxaan isku dayi doonnaa casharada laga qaadanayo si fiican inaan u fahanno. barnaamijkeeni maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa. inta aan casharkan cashar ku xiga iskaga arkeenno, waxaa idinkaga tegayaa sida salaanta islaamka. wixii feedback ah ama wixii su'aalaha idinka ayaan idinkaga tegayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.